markaynu imtixaan marayno iskuulka isdiyaarin weyn ayuu ardaydu qabtaa ta horeyso ay tahay in horta mar walba koorsadiisa uuna ka maqnaan uu yimaada uu isxaadiriyaa macalinku casharku dhigayo uu qortaa qofkii ku talagalay inuu imtixaanka maro markuu marana ka rajeynaya inuu helo natiijo wanaagsan saas ku dhaqaaqa marka imtixaan marka la marayo waad aragteen isdiyaarinta weyn ee ardaygu galo اللهم صل على محمد wuxuu ka qayb galaya koorsooyinkii kama maqna maalin kasta uu joogaa casharadiisa uu qoranayaa marka la yiraahdo imtixaan baa la marayaana wuu isdiyaariyaa oo wixii uu soo dhigto dhan dib u akhrinayaa in maalintaana isagoo diyaar ayuu goobta iskeenaya imtixaan marka la marayo qofku habeenka hore u seexdaa hore u kacaa maxay alaabo diyaarsadaa yaa wax yar u sii cuno yaa dikri quraan wax kaste isdiyaarin buu meesha goobta ku tagaa marka imtixaan yar oo la marayo koorsooyina ayaa bay diyaarinta oo dhan la soo marayay maxaad u maleen walaal ta kale imtixaanka kale ina sugaya adduunkan inuu joognana walaalayaal wadaarul imtixaan halkan wala isku imtixaama maxay waxa lagu imtixaamaya maalkaaga waxa lagu imtixaamaya awlaada waxa lagu imtixaamaya caafimaadka waxa lagu imtixaamaya shaqadaad hayso wax waliba ku soo gala kulli imtixaan yar in way dhici kartaa meel uu kaaga timaado imtixaanka marka maxaa looga baahan yahay laga baxo marka hadii marka horeba sida marka ardayga tahay imtixaanka aad ugu talagalayso adduunkan ilaa wadaar imtixaan aad ugu talagasho inuu imtixaan ku soo mari karaan oo mar walba diyaar tahay kama maqnaanaysid arimaha muhiimka ah ee la inoo diray sida shanta waqti la tukanayo sida in dikriga la akhrisanayo sida mar walba oo maxay adeegyar aad ka dareento nolosha ilaahay inoo faray ina faray inayri fafiru ila allah ilaahay Allah soo cararo soo cararo aniga waxa soo dhan hadii alla timaado imtixaanka insha Allah wad baasaysa si walbo adduunkan lagu imtixaamo hadii aad aaminsan tahay fa inna ma'al usri yusra wax walbo ku soo mara wax weey si kasto xanuun badan tahay haddana waxa aanasa qof qalbigiisu iska xasiloon yahay waayo ilaahay baad aaminsan tahay التوكل بالو باهيه يقين بالو باهيه فإن شاء الله أكسونو كنا تلقل فكر كبدني ضعيف بكارديجيا والكو ضعيف بكارديجيا وايو إنرجيا جودن بنوجيا مركا يقين بالو باهيه إن شاء الله إن إلهي نؤمنه ومهم مركا ودار الامتحان كو تلقل امتحان هذا شيء قفنا لجمع بودي قفل بجورجيسا دلال شيء ده كدلال امتحانا كدح سعودة وحيلا لأنه أركين بكدح سعودة حافظونا امتحان جرنا دادكم كان مجرو وايو وبدارو الامتحان marka waxa loo baahan yahay niyad xasiloon kalsooni yaqiin ilaahay wad aaminsan tahay inuu ku dayacayn hadaad isku dhiibto inuu ku dayacayn ka waxa soo dhani waa shaqeyn weyn aad ka soo shaqeynayso maskaxdaada iyo qalbigaaga inaad galiso inaad aaminto la ilaha illa allah muhammad rasuulullah raditu billahi rabba wa bil islam diina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا انت سوا حسوسين نفتيدا كسعوتا يدمانتين ان شاء الله هل كان ودار الامتحان امتحان كاننا ما aha lagu iqaabone oo in la iqaabon leeyno ma leeyno ba abuurin waka farxadayna ku noolnahay aynu awlaad leeyna siinayo aynu arsaaqadeeda helayno caafimaadkii alxamdulillah rabbil alamin walaalayaal dad baa maalin kasta kaliya la soo sifeeyaa kaliyaha halka inoogu yaala inta soo dhiigsa u kala filtareynaya 24 hour in yarna saneen ba inagu yaala wadnaha inagu jiraaba intii aynu dhalanay ilaa maanta sida aan buu boodaya oo wax kiraana laynaga ma qaado alxamdulillah rabbil alamin wa ni'moonka ilaahay ka imaada marka daarul imtixaan ma aha mid lagu iqaabaye waa mid aad kala imanayso kalsooni adadayga adduunkan aad ka bixi karto waa mid aad ka qaadayso ma aragtay firfircooni aad ka qaadayso iyo inaad baraarujsanaato si aan tareenka lagu jiray jidka wanaagsan geynaya aan looga dhaadhicin weeyii marka walaalayaal daarul imtixaan waxa laga bixi karaa dikri badan ilaahu la aamino maxay casharada la inoo diray oo laga boodin shanta waqti soonka sadaqada zakada birul waalideyn يدرسكاغو كامان هلا ومدو كامان هشا إن شاء الله إنتني وحسوسين مر لبادان كعليه إنتني وحسوسين نفتدو كسعوتا
يدمانتين إني جنويني صدري مسجكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.